Assalaamu calaykum daawadayaal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar labaad ku celiyay in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan hadiiba dowladda Shiinuhu isku daydo inay qaab xooga kula wareegto jasiiradda Taiwan. Hadalkan ayaa markii ugu horeysay madaxweynaha afkiisa ka soo baxay xilli uu booqasho ku mareeyay dalalka ku yaala bariga Aasiya, gaar ahaan dalka Japan. Wax yar kadib markii madaxweynuhu hadalka ka sheegay dhowr bilood ka hor dalka Japan, waxay la yaab iyo filanwaa ku noqotay siyaasiyiintii ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaan horey iyadu u sheegin inay sinaba ku difaaci doonto ciidan ahaan jasiiradda Taiwan marka laga reebo inay taageero u fidiso. Maalinimadii maanta ahaydna isagoo la hadlayay telefishin ku yaala dalka Mareykanka waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan hadiiba Shiinuhu soo weeraro Taiwan. Mar uu telefishinku weydiiyay inuu faahfaahiyana waxa uu sheegay inaanay dowladda Mareykanku noqon doonin dagaal haddii uu ka qarxo Taiwan sida dagaalka dalka Ukraine. Waxa uu sheegay dowladda Mareykanku inay Ukrainiyiinta taageerto oo keliya balse aanay u dagaalamin. Waxaase uu ballan qaaday madaxweyne Biden inaanay arrinta Taiwan sidaa noqon doonin, ciidamada Mareykankuna ay u dagaalamayaan Taiwaniyiinta. Waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Mareykan uu ku dhawaaqo ereyo sidan oo kale ah. Tan iyo wixii ka dambeeyay xilligii dowladda Shiinaha iyo Mareykanku ay kala saxiixdeen heshiiska ah laba siyaasadood iyo hal Shiine. Dowladda Mareykanka ayaa waxay qirsan tahay in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha. Haddana waxa uu madaxweyne Biden sheegay inay u dagaalamayaan gobolka Taiwan ee adduunka intiisa kale u aqoonsan yahay inuu yahay qayb ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. Tallaabadan ayaa la hubaa inay carag gelinayso maamulka Beijing oo aan isagu weli ka falcelin. Goor dambe maantaana waxaa la filayaa dowladda Shiinuhu inay falcelin culus ka bixiso hadalkan madaxweynaha. Siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan arrintan Taiwan. Qaarkood waa kuwo uu ku fogaaday nacaybka Shiinaha iyo qaabka hanti wadaaggu, waxayna la aragti yihiin madaxweynaha waxayba danaynayaan in Shiinaha dagaal weyne lagu qaado, halka inta badan siyaasiyiinta Mareykanku ay danaynayaan dowladda Mareykanku inay noqoto mid siyaasad ahaan ku guuleysata dagaalka balse aanay qayb ka noqon dagaal ka dhaxeeya Shiinaha.